soo dhawaada asxaabta magacaygu waa Maxamed Nabiil kula soo dhawaada channelka maanta plus ee idinku soo wareejinaya internetka isagoo idin tusaya muuqaalada ugu cajiibsan la yaabkana leh ee ku faafay internetka aad iyo aad ayaan idinku mahadcelinayaa sida weyn ee aad u taageerteen channelkan waxaan idin leeyahay waad mahadsantihiin muuqaalkii u dambeeyay asxaab badan ayaa comment ka bixiyay shantii ugu horeysana waxa ay kala yihiin Hanad Garaad Channel Sadam Nuur Cabdullaahi Hanad Isaaq Cali Wanaagsame Channel haddaba markaynu bilowno muuqaalkeena midka ugu horeeya wiilkan yarka si kalsooni ku jirto ayuu cunto ugu diyaarinayaa walaalkiis kooxda meel duur ay marayeen kadib waxay arkeen shabeel soo koraya gaarigooda I'm your guide. You're a man. Yeah. Let's go check my batteries. Oh my god. aaladan waa mid laga hagayo helicopter si cajiib ah ayayna geedaha u simaysaa labadan qof ee waayeelada gurigooda ay ka soo baxeen mana ku baraarugin in xayawaanka dubka uu hortooda taagan yahay darawalkana shil aad u xun ayuu ka badbaaday oo xayawaanadan ayuu jiiri tagay fiiri bandhiga cajiibka ah oo ay sameynayaan jameecadan iyo sida ay iskula keenayaan ninkan waxaan u maleynayaa ciyaarta aad ayuu u jecel yahay darawalka gaarigan waa mid hurda xawaare saa'id ah ayuuna ku socdaa gaariga maadooyinka uu isticmaala shakhsigan waa cajiib bal fiiri bandhiga uu sameynayo shakhsigan waa mid sabar badan laakiin aniga intaa oo dhan haddii aan dhisi lahaa maba dumin lahayn eygan waxa uu la yimid fikrad marka uu korayo jaranjarada fiiri shakhsiyaadkan dabdamiska ah boobsiiska ay leeyihiin eygan waxa uu iska dhigayaa mid aan cuntada danaynayn marka uu soo fiiriyo saaxiibkii
marka aad shaqo qabanayso caqli adeegso intii aad xoog adeegsan lahayd. fiiri aaladan cajiibka ah sida ay buugaagta uga jarayso waraaqaha dheeraadka. bisadan masaakiinta ah waxay heshay meel biyo nadiif ah ay ka cabto. haradan biyaheedu waa mid aad nadiif u ah. xayawaankan dubka ah sida dadkii ayuu u socdaa. aabbahan wuxuu ka dhigay wiilkiisa sida inuu isaga geliyo kolayga kubadda si uu uga farxiyo. eygan waxa uu jeclaaday inuu bannaanka ku soo wareego keligii. diidiinkan yar waxa uu leeyahay 2 madax. fiiri xayawaankan dolfiinka ah sida uu dadka u fahmayo. ma qiyaasi kartaa awoodda celinaysa dhagaxan aadka u weyn? waa tan xeeladda ay adeegsadaan sawir-qaadayaasha qaar si ay u sawiraan sawirro cajiib ah oo la yaab leh. maanta waa naga intaa. waxaan rajeynayaa inaad ka hesheen. hana hilmaamin inaad la garayso muuqaalkan, subscribe-na dhahdo. muuqaalka xiga ayaa inoo balana. assalaamu calaykum.